ودياردي ركاب كاهيد قصديدو عربتا أو مدح الكورمريه كديكتاي دمان قياسيه جري دنك فيزيكسك الباب كان وصو خداي ساداليه iyo fasiraadihii ay bixin jireen culimadii waaweyneed ee dhanka duulimaadadu waana diyaaradii 513 Santiago oo lahayd mid ka mid ah dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee aanay weligeed ilaawi doonin cilmiga iyo taariikhdu waana diyaaradii kaga yaabisay dadweynihii xaaladeeda la socday qaabkii degdeg ahaa ee ay uga dhuumatay saaxadda iyo qaabkii ay muddo 35 sanadooda oo ay maqnayd ka bacdi ay haddana si kedisa mar kale u soo muuqatay ee u soo fadhiisatay barnaamijkeenana waxaynu dib ugu yara noqonaynaa taariikhda si aynu wax uga ogaano diyaaradda oo aan ilaa maantadana wax fasiraada oo dhammaystiran loo haynin qisadeedii ku soo dhowaada barnaamijka sanadkii 1954 ayay ahayd markii diyaaraddaasi ka kacday garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalo ku taala galbeedka dalka Jarmalka iyadoo ku jirtay mid ka mid ah duulimaadadeedii caadiga ahaa waxaana dusheeda saarnaa 29 qof oo 4 ka mid yihiin shaqaalaheedii ahaayeen inta kalena rakaabkii ay qaaday waxaana ay ku sii jeeday magaalada Santiago iyadoo ka talaabi lahayd badda Atlantiga markii ay muddo saacada duulimaadadeedii ku jirtayna waxa go'ay dhammaan xiriirkii lala lahaa diyaaraddaasi waana xilligii ay ka qarsoontay raadaaradii la socday waxaana lagu waayay oo cid ugu dambeysay iyadoo dul haadaysa biyaha badda Atlantiga dhammaan gurmadadii loo sameeyay iyo baaritaanadii markii dambe laga sameeyay maqnaanshaheedana laguma daaqaadin wax raad ah oo ay diyaaraddaasi lahayd isku day kasta oo lagu doonayay in lagu helaana waxa uu ku dambeeyay fashilaad isweydiintuna waxa ay ahayd ilaa maantadana ay tahay sidee buu shay weyn oo diyaarad rakaab oo kale uu u qarsoomi karaa oo xitaa looga heli waayaa wax raada hadday tahay baalasheedii ama mashiinadii ku rakibna muddo ka bacdi markii laga rajo dhigay in diyaaradda la helo ayaa waxay noqotay in la iska ilaawo ilaa ay diyaaradda lafteedu mar kale iska timi 18 Oktoobar sanadkii 1988 waxaana ay soo noqotay diyaaraddaasi kadib markii ay maqnayd muddo 37 sanadooda waxaana ay si kedisa u fadhiisatay garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Brazil iyadoo sidii diyaaradihii caadiga ahaa ku dul wareegtay madaarka si ay u hubiso halka ay fadhiisanayso ee bannaan xilligaana ma jirin wax isgaarsiin oo diyaaradda u shaqaynaya oo ay maamulayaasha madaarkaasi kula xidhiidhaan sidoo kalena diyaaraddu ma bixinaynin wax leedh oo calaamado iyo tilmaamo ay u isticmaasho iyadoo markii ay cagaha soo dhigatay ee istaagtay loo diray koox dhanka ammaanka oo hubisa xaaladda diyaaradda aan la garanaynin isla markaana aan isgaarsiinta iyo leedhka toona lahayn markii ay kooxda amni waayeen cid ka soo degta iyo cid kala hadasha diyaaradda toona waxa ay si degdega oo taatika ciidana u gudagaleen diyaaraddaasi laakiin ciddii gudaha ku qaabishay waxay noqdeen lafihii dadkii rakaabka ahaa ee diyaaradda oo sidoodii u dul saaraa kuraastii ay ku fadhiyeen iyadoo xitaa lafihii bayloodku dul saarnaayeen fadhigiisii iyadoo wax diyaaradda waday oo garoonka soo fadhiisayeen aan la garanaynin waana diyaaraddii muddada sannadaha xilliga noqotay shaygii loogu hadalhayn badnaa iyadoo dhammaan saxaafadda caalamka oo ay jaraa'idka u badnaayeenna ay ka faalloodeen oo baahinayeen xogaha iyo macluumaadka ku saabsanaa diyaaraddaasi su-aalihii ka dhashayna waxay ahaayeen sideebay diyaaraddani mar kale ku soo baxday sideebayse qaabka xirfadaysan ugu soo fadhiisatay garoonkan diyaaradeed xilligaa dowladda Brazil waxay dhistay guddi ka kooban culimada xaqiiqooyinka raadiya iyadoo wax walbana qarsoodi laga dhigay oo aanay xukuumaduna soo saarin wax natiijo ah oo ay baaritaanadeedii ka gaadhay iyadoo dhaleecayn badanna dalka dibaddiisa uga timi oo lagu eedeeyay Brazil inay qarisay wixii ay dhacdada ka ogaatay oo aanay doonaynin inay cidna la wadaagto soo bandhigis la'aanteedana lagu safeeyay inay tahay dembi ay ka gashay culumta kala duwan maadaama xogta diyaaradda laga raadraaci lahaa raadinta iyo baaritaanka cilmi badan oo aan aadamuhu weli ka daaqaadin dunidan aynu ku noolnahay